عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta waxa uu ku manaystaa mawaasim aad iyo aad u khayr badan oo cajaa'ib badan, taasoo loogu talagalay ummaddu inay ka helaan dembi dhaaf, maqfiro iyo raadi ahaasho ilaah subxaanahu wa tacaala agtiisa ah. mar dhow ayaa waxaan ka soo gudubnay mawsimkii ramadaanka, kaasoo fadaa'il fara badan lahaa, ummad fara badan naarta looga xoreeyey, ummad fara badan dembiga looga tirtiray. wax yar ka bacdina waxaan u sii gelaynaa mawsimkii xajka, kaasoo asagana ah rugni ka mid ah tiirarka islaamka, rugni ka mida tiirarka islaamka asagoo ah xajku ee siyaamkuna saasoo kale ayuu markaa ahaa. sida aan la socono, malaayiin muslimiin ah ayaa waxay ku sii wajahayaan oo ay ku qulqulayaan ciidda barakaysan ee maka almukarama, ayagoo doonaya inay gutaan manaasigta iyo mawsimka xajka. sidaa darteed baa ilaahay wuxuu yidhi: inna awala beytin wadica linnaas laladii bibakka, gurigii ugu horeeyey ee cibaado ahaan loogu dhisay dadka. inna awala beytin wadica linnaasi laladii bibakkata mubaarakan wahudan lilcaalamiin, gurigii ugu horeeyey cibaado ahaan loo dhisay oo loogu dhisay dadka waa midka bakka ku yaala, bakka makaa loola jeedaa, kaasoo mubaarak ah oo barakaysan, hanuun ayuu caalamka u yahay buu yidhi ilaahay. fiihi aayaatun bayinaat, waxaa ku dhex sugan aayaad bayinaad ah, aayaad iyo calaamaad bayinaad ah oo cadcad. markaad tagta waxaad arkaysaa bi'rigii zamzamka, xijru ismaaciil, safa iyo marwa, waxyaabo fara badan oo aayaad ilaahay ah. maqaamu ibraahim baa ku sugan. waman dakhalahu kaana aamina, qof allaala qofkii gala waa aamin buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila, ilaahayna ummadda korkooda waxa uu ku leeyahay inay soo xajiyaan qof allaala qofkii wadadeeda kari kara. xajku waxaan soo tilmaanay inuu yahay rukni ka mida tiirarka islaamka, weliba waa tiirka ugu dambeeye islaamnimada uu markaa ku taagan yahay. qofka cimrigiisa hal mar ayuu ku waajibayaa xajka, sidaa darteed ayaa wixii ka bataa wuxuu iska noqonayaa sunno falasho. markay soo degtay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila, waxaa istaagay nin lagu magacaabo aqrac ibni xaabis. wuxuu yidhi: yaa rasuula allah, akulla caamin, ma sanad kastaan xajinaynaa? nebiga waa ka aamusay. mar labaad ayuu ninkii ku soo celiyey: akulla caamin yaa rasuula allah. nebigu wuu ka aamusay. mar saddexaad ayuu ku soo celiyey, markaasuu nebigu yidhi: low qultu nacam, haa haddaan idin dhihi lahaa waa idinku waajibi lahaa, mana awoodi lahayn. intaan idinka aamusanahay oo aan idinka tegaya iga taga. war dadkii adinka idinka horreeyey waxaa lagu halaagay su'aal fara badan iyo khilaaf ay nebiyadu khilaafi jireen. haddaan wax idin amra intay awooddiinu tahay kala imaada, haddaan wax idinka reebana ka wada taga buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. idan qofka cumrigiisa ayuu intaa ku daray nebiga: alxaju mara, xajku waa hal mar, wixii ka batana waa iska sunno falasho. sidaa darteed ayaa nebiga waxaa la tilmaamaa inuu hal xaj xajiyey, kaasoo uu ahaa xajkii wadaaca. haddaba xajku sida aan la socono acmaalaha ilaahay loogu dhowaada kuwa ugu qiimaha badan ayuu ka mid yahay. sidaa darteed ayaa waxaa la tilmaamaa in dembi dhaaf weyn laga helo,
nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man xaja lilaah qofkii ilaahay dartii u xajiya oo aan rafath iyo fusuuq aan ku darin xajkiisa wuxuu ka soo noqdaa sidii maalintii hooyadii ay dhashay oo kale ah xagga dembiga. ilaan qofku markuu dhalanayo wax dembiya ma lahayn, saxaafadiisii warqadiisa way caddayd, saasoo kale ayuu uga soo noqdaa. xadiid kale ayuu nebigu ku tilmaamay waalxaju lmabruur, xajka lagu baarinimo falo laysa lahu jazaa, abaalgud ma laha ilaa janno maahane, wax kale oo loogu abaalguda ma laha. qofka xajkiisa uu noqdo xaj mabruur ah oo lagu baarinimo falo oo sidii loogu talagalay loogu xajiyo, haddii abaalkiisa wuxuu noqonayaa janno. idan xajku wuxuu leeyahay fadaa'il aad iyo aad u fara badan. taabicuu bayna alxaji waalcumra, war xajka iyo cumrada israacraacsiiya, faqriga iyo dembiga ayay tirtiraan buu xadiidkula tilmaamay, sida kiirka uu u tirtiro qabadka xadiidka iyo birta markaa kortaa. saa darteed xajka waxyaabaha ilaahay agtiisa loogu dhowaado acmaalaha ugu qiimaha badan ayuu markaa ka mid yahay. waa cibaado xagga badanka iyo maalka labadaba ah. cibaadaadka qaarna badankaa laga fuliyaa oo lacag uma baahna sida salaada oo kale. mid ka mid ah waxay u baahan tahay lacag iyo mtaqaanaa hanti, oo jasadka uma baahnee waa sakada. cibaadaadka maalka iyo badanka labadaba u baahan ayuu ka mid yahay xajka. sidaa darteed buu ilaahay yidhi man istataaca ilayhi sabiila, waa qof allaala qofkii qudro iyo awood iyo tabar markaa u leh ayaa markaa loola jeedaa. idan xajka lama soo koobi karo fadaa'isha weyn ee markaa uu leeyahay. saa darteed buu in badan axaadiistuna ay tilmaameen, ilaahayna qur'aanka uu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala. idan xajka qiimaha iyo wanaagga faraha badan ayaa dhex yaala. shuruudda xajka waxaa ka mid ah qofku inuu muslim yahay, qofku inuu caaqil yahay, qofku inuu mtaqaanaa yahay tamyiiz ama qaangaar. ciyaalka yaryarka ah way xajin karaan, laakiin haddii ay xajiyaan xajka islaamka kama dhicin ee waa laga rabaa mar allaala markay qaangaaraan. waayo xadiid buu nebigu ku tilmaamay sabi walba oo xajiya haddana qaangaara xajkii islaamkaa laga rabaa. qof kastoo riq ku jiray ama addoonnimo oo xajiya haddana xorooba xajkii islaamkaa markaa laga rabaa. laakiin ciyaalka yaryarkaa way xajin karaan. rawxa meel la yidhaahda ayuu nebigu soo maray, wuxuu kula kulmay rakba iyo jameeca meel degan. markaasoo wuxuu ku yidhi man antum yaa tihiin? waxay dhaheen muslimiin ayaan nahay. man anta adigu yaa tahay? markaasuu yidhi aniga rasuulkii ilaahay ayaan ahay. gabar ayaa canugar intay u soo kor qaaday waxay tidhi alihaadaa xaj, midkaan xaj ma ka ansaxayaa rasuulkii ilaahayow oo xaj ma samayn karaa? qaala nacam walaki ajr, adigana ajir ayaad ku leedahay. idan wuxuu tilmaamayaa sabiyadu inay markaa xajin karaan, laakiin haddii ay qaangaaraan xajkii islaamka ma ka dhicin ee markaa weli waa lagu leeyahay. taabaa markaa loo shardiyaa. waxaa loo shardiyaa xoriya, qofkii inuu xorriyad haysto. sida aan hadda tilmaanay hadduusan haysan uu xajiyo xajkii islaamka weli kama dhicina markaa waa laga rabaa. intaa waxaa kaloo loo sii raacsiiyaa inuu istitaaca leeyahay, wixii uu ku bixi lahaa, wixii uu meesha ku isticmaali lahaa, wixii ciyaalkiisu uga tegi lahaa. intaasoo dhan istitaacadeeda qofku waa inuu yeelan kara, sida ilaahay tilmaamay man istataaca ilayhi sabiila. intaa ayaa loo shardiyaa qofka raba inuu markaa xajiyo. intaa ka bacdi dumarka waxaa khaas ayaga u ah maxram inuu micigooda yahay, oo mar allaala markii ay xajinayaan ay maxram markaa wataan. waayo xilligii nebiga ninbaa xaaskiisii xajka aaday, asagana wuxuu ku qornaa cutub u socday duulaan. markaasuu rasuulkii ilaahayow waxaan u socdaa oo aad igu qortay duulaan hebel, imra'adaydii waa xaajiyad oo xajkay u socotaa, ee maxaan sameeyaa? rasuulku wuxuu yidhi orod oo xaaskaaga markaa la xaji. marka maxramku waa shay muhiim ah, waana shardi aasaasi ah oo looga baahan yahay dumarka ayagu markaa raba inay xajka markaa aadaan. saasoo markaa axaadiista nebiga uu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. idan xajka arrimooyinka ayaa markaa ka mid ah. taa ayaa loo baahan yahay. arrimooyinkaa buu ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala. xajku ilaahay asagoo tilmaamaya wuxuu yidhi alxaju ashhurun macluumaat, waa bilooyin macluumaad ah oo la yaqaano. faman farada fiihina alxaja falaa rafatha
walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji. waa bilooyinka ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala. alxaju ashhurun macluumaat, waa bilooyin macluumaad ah. waa bisha shawaal, waa bisha soonfur, waa bisha aan hadda ku jirna ee dulqacda, iyo 10 maalmood ee ugu horeysa bisha dilxaj ama bisha carafada. intaa ayaa loola jeedaa aayaddu markay leedahay alxaju ashhurun macluumaat. intaa ka bacdi faman farada fiihina alxaja, qofkii isku farad yeela oo isku waajib yeela oo niyeysta bilooyinka dhexdooda inuu ku xajiyo, falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji. waa inuusan rafath iyo fusuuq iyo jidaal uusan ku samayn xajka gudihiisa. xajka dhexdiisa waa inuu ka daayaa arrimooyinkaasoo dhanba. rafath waa wax kasta oo afxumo ah. qole waxay dhaheen jimaac baa loola jeedaa. waxaa la diidayaa fusuuq, inaad xajka dhexdiisa fisqinimo iyo cisyaan aad la tagto. waxaa la diidayaa jidaal, dadka xujayda ah ee xaajiyaasha aad la muranto, aad dagaalanto, aad dhib iyo waxyaabo kala geysiiso. intaasoo dhan ayaa markaa mamnuuc ah buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. idan bilooyinka aayaddu ay tilmaantay waa shawaal iyo dulqacda iyo 10 maalmood ee bisha dulxaj markaa ugu horeysa. maalmaha ayaa markaa lagu tilmaamaa qofkii xajiya falam yarfuth walam yafsuq, waa bishardi inuu xaj nadiifa u xajiyo. xajka ilaah subxaanahu wa tacaala khayrka iyo wanaagga uu dhex yeelay oo jannada lagu helo oo dembi dhaafka ilaahay ku bixiyaa markaa kaa ah. sidaa darteed buu rasuulku mar allaala markuu xajiyey wuxuu yidhi khuduu cannii manaasikakum, kaalaya aniga iga qaata oo iga barta acmaalaha xajka. waxaa laga yaabaa sanadka soo socda inaanan kulmin. idan xajka mabruurka ah markay culimmadu fasirayaan ee jannada lagu galo waxay yidhaahdeen waa xajka loo xajiyey sida uu nebi moxamed u xajiyey sala allahu calayhi wasalam. qofku hadduusan saa u xajinin xajkiisa xaj mabruur ah ma aha. waayo asagaa yidhi khuduu cannii manaasikakum, acmaalaha xajka ani iga qaata. qofku maaha inuu hawadiisa iyo sida uu asagu doono u xajiyo. ma aha meelaha dhibka badan inuu iska joogo oo meelaha fudaydka uu tago. saa darteed baa nebi ibraahim iyo wiilkiisii ismaaciil markii ay aasaaskii kacbada dhiseen waxay dheheen ilaahayow naga aqbal. markay dhammeeyeen kabacdi bay yidhaahdeen wa arinaa manaasikana, ilaahayow acmaalaha xajka na tusi. intaa kadib baa jibriil loo soo diray oo waxaa la tusiyey sida markaa loo xajiyo. marka xajka mabruurka ah kaasaa loola jeedaa. qole waxay dheheen xajka mabruurka waxaa laga wadaa waa xajka qofka uu xajiyo markuu ka soo noqdana dembi uusan dib dambe u gelin, uu si fiican markaa isaga ilaaliyo. qofka xajka mabruurka ah arrimooyin badan oo noocaas ah ayaa markaa lagu tilmaamaa. idan qofku mar allaala marka uu isku farad yeelo ama uu damco inuu markaa xajiyo waxaa laga rabaa arrimooyinka soo socda ee aan tilmaami doonno inuu markaa la yimaado. midda ugu horeysa qofka mu'minka ah ama gabadha muslimadda ah waa inay ogaato 3 hab ayaa loo xajiyaa ama 3 kayfiyad. 3daa mid ka mid ah ayaad dooranaysaa markaad xajka aadayso oo aad rabta inaad xajiso. habkee u xajinaysaa? marka hore waa lagama maarmaan. qaybta koowaad waxaa lagu magacaabaa tamatuc. qofku waa inuu tamatuc niyeysto. midda labaad waxaa la yidhaahdaa qiraan, waa xaj iyo cumro laysdhex geliyo. midda saddexaadna ifraad baa la yidhaahdaa oo qofka waa inuu xaj keligii aado, xaj keligiis uu markaas soo xajiyo. markuu xajka dhammaysto qofka ifraadka ah oo xajka u dhammaaday kabacdi wuu cumraysan karaa. inta uu tanciim tago ama masjid caaisha uu ka soo xarmado yuu xaramka imaana, markaasuu cimro samaysanayaa. marka 3daa kayfiyad ayaa loo xajiyaa. tamatuca waxaa la yidhaahdaa bilaha xajka marka ay dhashaan inuu qofku cimraysto. markuu cimraysto kabacdi uu dharka iska dhigo ee uu xalaaloobo. marka la gaaro yowmu tarwiya waa maalinta 8aade inuu mar labaad labisto oo markaa xajka uu aado Mina iyo Carafaad iyo meelaha lamidka ah. qofka noocaa sameeya oo habka u xajinaya waxaa looga baahan yahay maalinta 10aad inuu neef gowraco. ay ri u yar tahay ama lo ama geel wuxuu markaa kari karo. sidaa darteed buu ilaahay asagoo tilmaamaya arrintaa wuxuu yidhi faman tamataca bilcumrati ila alxaji famastaysara min alhadyi. qofkii ku tamatuca oo ku raaxaysta cumro ilaa xaj laga gaaro
ilaa xajka laga gaarayo waxaa korkiisa ahaaday wixii u fududaada ee uu bixin karo oo hadyi ah buu yidhi ilaah. faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi. qofkii waaye ka waran oo tamatucna u xajiyaa. qofkii aan helin buu yidhi ilaahay wuxuu soomayaa 3 maalmood oo xajka gudihiisa ah, 7na markuu gurigiisa ku laabto. tilka 10 kaamila, waa 10 maalmood oo buuro oo buuxda. tilka 10 kaamila. saa waxaa loo ogol yahay dadka bannaanka ka yimaada ee dadka masjidulxaraamka degan arrintaa ma samayn karaan, waayo ilaah wuxuu yidhi daalika liman lam yakun ahluhu xaadiri lmasjid alxaraam. waa dadka ehelkiisa aysan deganayn masjid alxaraamka agtiisa. idan qaybta koowaad waa sidaa oo tamatuc baa la yidhaahdaa. saasayna xaalkiisu yahay oo qofku waa inuu cimraysto bilaha xajka marka la gudagalo, kabacdina uu tamatucow dharka dhigto, kabacdina wuxuu doono sameeyo waxba ka xaaraam noqon maayaan. intaa kabacdi yowmu tarwiya waa maalinta 8aad ee bisha carafo, meel allaala meesha uu joogo ayuu ka labisanayaa, dharkiina ka xiranaa, xajkiina warkaa waa gudagelayaa. ninka noocaasa neef baa laga rabaa hadyi ah. maalinta 10aad uu qalo, ama 11aad ama 12aad maalmaha xoolaha la qalo. hadduu kari waayana 10 maalmood oo soon ah, 3 maalmood uu kusoo soomo xajka, iyo 7 marka uu gurigiisa kusoo laabto. qaybta labaad waa qiraan. waa in xajka iyo cimrada laisdhexgeliyo. waxaa loola jeedaa markaad baxayso ayaa waxaad niyeysanaysaa inaad mataqaanaa cimro iyo xaj aad isdhexgelinaysid. marka hore waad labisanaysaa, markaad labisato oo aad cimraysato sidii ninkii tamatuca ahaa oo kale dharka dhigi maysid. dharka waad wadanaysaa ilaa xoolaha ay ka gaaraan maalinta 10aad makaankay ku xalaaloobi lahaayeen. qofka noocaas ah qiraan baa la yidhaahdaa. laftigiisa xoolo ayuu gowracayaa. ninka noocaana soon looma tilmaamin. sababtu waxay tahay qiraanka qofku maba u xajin karaba ilaa inuu xoolaha asagu markaa wada maahane. qofka micigiisa hadyi yahay, waayo xajatulwadaac mar allaala markii nebiga sala allahu calayhi wasalam uu xajinayey, saxaabaduna ay la xajinayeen, dhammaan waxay soo xirteen habkii noocaas ahaa qiraanka. dadna hadyi bay wadeen, qolana ma aysan wadin. mar allaala markii maka la yimid ayaa rasuulku wuxuu yidhi qof allaale qofkii hadyi wada yuusan xalaaloobin markuu cimraysta kadib ilaa maalinta 10aad laga gaaro. qof allaala qofka aan hadyi wadin oo xaj iyo cimro isdhexgal ah soo xirtay, markuu cimraysta ha fasaqa buu dhahay nebiga oo ha xalaaloobo. maalinta 10aadka mataqaanaa markuu cimraystaba ha iska xalaaloobo oo ha u bedelo xajkiisa, ha fasaqo ee cimrada ha ku raaxaysto. markaa kabacdi maalinta 10aad xoola ha bixiyo. hadduu waayana 10 maalmood oo 3na inta ah, 7na aqalkiisa ah ha soomo. saas markuu rasuulku yidhi yay saxaabadu intaan hadyi wadin way ka calool xumaadeen. waxay dheen rasuulka ilaahayow anantaliqu ma minaan aadaynaa wadakaru axadunaa yaqtir. asagoo axadkeena dakarkiisa uu tifqayo. waxay ula jeedaan haddaan raaxaysano oon tamatucnoon dharka dhigno oon xalaalowno, xaasaskii baa la isticmaalayaa, see marka u aadaynaa mina. markaasuu rasuulku wuxuu yidhi low istaqbaltu min amri mastadbartu. waxaan hadda xasuustay haddaan gadaal ka xasuustay, haddaan wixii aan gadaal ka ogaaday haddaan horay ka ogaan lahaa waan idinla xalaaloobi lahaa. mana soo kaxeeyeen hadyiga. saasuu markaa rasuulku tilmaamay. ninka noocaas ahna waa qaybta labaad ee qiraanka. qaybta 3aadna waa ifraad. waa qofka oo xaj keligii samaystaa. maalinta yowmu tarwiya uu baxayaa, waa tawaafayaa, safa iyo mar wuu aadayaa, duhurkiina mina ayuu usii dhowaanayaa oo meeshaasuu markaa ku tukanaa. xajkii baa meesha uga bilaabanayo. ninka noocaasa wax laga rabo oo hadyi ah ama soon ah markaa ma jiro. marka qofka muslimka marka hore waa inuu ogaado 3daa qayb inay markaa jirto, mid uuna aad ahaato. intaa wixii ka dambeeya waxaa jirta waxyaabo looga baahan yahay qofka xaajiga ah. mar allaala marka aad dhaqaaqayso, ninka mataqaana qofka ragga ah waxa uu ku xajinayaa 2 go oo cadcad ah sida rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. wuxuu qaadanayaa kobo aan hoos ka xirnayn sida uu nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. laakiin mararkii dambe haddii wax kale uu waayo
wuu qaadan karaabaa markaa loo tilmaamay. waxaa soconaysa markii aad baxdo oo saddexdaa mid ka mid ah aad tahay oo aad niyeysato, miiqaad meel la yidhaahda ayaa jirtaa. miiqaadyo ayaa laga xarmadaa sida rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. yolamlam oo kaleo ahlu yaman loo xadiday sida rasuulku tilmaamay, ilaa iyo 5 mawaaqiit ayaa la tilmaamay oo qofka loo baahan yahay mar allaala markay diyaaraddu ay la dulmarayso inuu meesha marka uu joogo uu xarmado ee marka uu xirto xajkii. dharka markaad gashato labada go weli ma xarmanin, weli waxba ka xaaraan ma aha ilaa inaad dharkii iyo niyaddii iyo ihlaalkii iyo nusugii aad la timaado, markaasaa wax kasta kaa mamnuuc noqonayaan. qofka xaajiga ah waxaa loo diidayaa waxyaabaha udga ama carfaaya, waxaa loo diidayaa timihiisa ama cidiyihiisa inay meel ka go-aan sida ilaahay tilmaamay, wa atimu alxaja waalcumrata lilah fain uxsirtum fama staysara min alhadyi. haddii laydin xabaasana wixii idin fududaada oo hadiya bixiya buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. siduu aayaddu u sii socotay waxaa ku jirtay faman kaana minkum, qofkii adinka idinka mid ah oo jiran, aw bihi adan min ra'sihi, ama dhib madaxa ka qabo injir iyo waxyaabo kale ay gasho oo markaad xiirta ama timihii gooyaa, fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk. saasuu markaa u bixinayaa fidyo soom ah ama 3 maalmood ah ama masaakiin wax la siiya ah ilaa iyo 6 ah ama saneef uu gowraco. intaasuu markaa isku daraa. idan markaad xaaji tahay waa inaad iska ilaalisa arrimooyinkaasoo dhan oo ilaahay diiday subxaanahu wa tacaala. qofka xaajigana markaa mamnuuca ka ah mar allaala markaad labiska xirato intaadan xiranin catarkii aad marsato iyo wixii aad u samaysato, haddii hadhow aynan kaa baabi'in oo markaad xarmata kabacdi ay weli kasoo bidhaamaan ama ay kaasoo udgaan, wax dhiba ma jiro. laakiin waxaa la diidayaa waa mar allaala markaad xaram ka guda gasho ood xarmato oo waxyaabaha kale aad samaysato in arrintaa saa marka aad u guda gasho. taa waaye waxa markaa diintu marka ay diidayso. intaa markaad samayso oo xaaladda aad la timaado oo aad xarmatay, waxaad aqrinaysaa talbiyadii labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda waannicmata laka waalmulk laa shariika lak. saasaad markaa dhahaysaa talbiyada wad ilaa aad xaramka markaa ka tagto. mar allaala markaad xaramka tagto waxa ugu horeeya oo aad bilaabaysaa wuxuu noqonayaa tawaafka lagu magacaabo tawaafu lquduum. marka aad tawaafkaa tawaaftid 7 mar, intaa ka bacdi maqaamu ibraahim hadday kuu suuro gasho gadaasheeda 2 rakacadood ku tuko. waayo ilaahay baa yidhi waاtakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa, maqaamu ibraahim meel lagu dugta ka dhigta. saa buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. intaa ka bacdi waxaad aadaysaa safa iyo marwa. 7 mar ayaad ku mataqaanaa dawaafkiina 7 jeer buu markaa ahaa. mar walbana waxaad ka bilaabaysaa xaajul aswadka. markaad hal mar soo wareegto meeshii aad timaado koobaad tirsanaysa. intaa ka bacdi safa iyo marwa safaad ka bilaabaysaa. ila nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ka bilaaba wixii ilaahay ka bilaabay. rabbi muxuu ka bilaabay ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illaah. mar allaala markaad safa tagto oo aad kasoo degtood marwo timaado mid baad xisaabsanaysaa. markaad marwo kasoo degtood safa timaadana waa tii labaad. ee macnaha ma aha intaad safa kasoo degtood marwo timaado marwo aad tagta haddana safaad korta kow la xisaabi maayo oo 7 waa in labadaba marka laysku daro ay 7 noqotaa. waa inay safa ka bilaabataa marwana ay markaa ku dhammaato. intaa marka aad samayso, haddii aad tamatuc tahay waad raaxaysanaysaa, timaha ayaad gaabsanaysaa. intaa wixii ka dambeey waad iska xalaaloobaysaa, dharkaad iska dhigaysaa. wax kaa xaaraan ah ma jiro ilaa laga gaaro maalinta lagu magacaabo yowmu tarwiya ama maalinta 8aad ee bisha dilxaj. qofkii qiraan ah oo xaji cimri isku dhex jiray, ama qofkii xaj keligii ahoo maalintaa tarwiya saa inta sameeyey ama maalin ka horaysana maalinta 8aad mina unbuu markaa iska aadayaa. intaa wixii ka dambeeya waxaa la gaarayaa yowmu tarwiya, waa maalinta 8aad, waa maalinta biyo dhaansiga, waa maalinta bisha 8 ay tahay bisha dilxaj. intaa ka bacdi qofka xaajiga ah wuxuu u dhaqaaqayaa mina. mar allaala markuu mina tago wuxuu ku tukanayaa ay ugu horeysa waa salaada duhur iyo salaada casir iyo salaada maqribka ah iyo salaada cishaa'iga. meesha la seexanayaa habeenka ay 9aad ku soo gelayso waa maalinta 8aad, waa maalinta xajka uu bilaabanayo. mar allaala markaad meesha tagto waxaad ku tukanaysaa salaada duhur oo 2 rakacadood ah.
wax laysku daraya salaada ma jira maalinta. salaad kasta wakhtigeeda lagu tukanayaa, laakiin waa la gaagaabinaa. duhurka 2 rakacadood ayaa la tukanayaa. intaa ka bacdi waad iska joogaysaa oo casirkiina 2 tukanaysaa. maqribka weligaa lama gaabiyo, safar haddaa tayo haddaad xaj joogtidba 3diisii rakaca la tukanaa oo isla wakhtigiisii ahaa. cishaa'igana saasoo kale asagana waxaad tukanaysaa 2 rakacadood oo wakhtigiisii markaa ah. waxaan maraynaa maalintii 8aad. intaa ka bacdi markaad cishaa'iga tukato, maalintaa salaadihii aad gaagaabisay laakiin aadan waxba isku darin, waxaa la seexanayaa Mina. habeenka 9aadka ay soo gelayso, subaxii salaada subax meesha lagu tukanayaa. kabacdi waa laga dhaqaaqayaa oo waxaa la aadayaa, waa maalintii 9aade, waa maalintii Carafee, waa maalintii lagu magacaabay xajka, lagu magacaabay alxaju Carafa. Carafa waa rukniga asaasiga ee ugu weyn oo qof allaala qofkii laga waayo xaj uusan markaa u jirin. alxaju Carafa markuu rasuulku tilmaamayo, nebigu markuu ka soo baxay Namira meel la yidhaahdaa teendho loogu dhisay, meeshaasuu joogay ilaa zawaalkii laga gaaray. duhurkii markii la gaaro maalinta carafaadka, waxaa la samaynayaa 2 rakacadood oo duhur ah iyo 2 rakacadood oo casir ah ayaa wakhtiga duhurka la tukanayaa. waxaan maraynaa maalintii 9aad. maalinta 9aad Carafa waxaad ku tukanaysaa 2 rakacadood, waxaad ku tukanaysaa 2 rakacadood oo duhur ah. 2 rakacadood oo casir ahna waad raacsiinaysaa biaadaanin waaxid iyo wa iqaamatayn. waa hal aadaan iyo 2 aqimitaan. waa la aadaamayaa, waxaa la tukanayaa 2 rakacadood oo duhur ah inta la aqimo. haddana waa la aqimayaa 2 rakacadood oo casir ah ayaa la tukanayaa. sababtu maxay tahay? casarka marka la gaaraa wuquuf la samaynayaa, Carafa la istaagayaa. maalinta waa maalinta ugu fadliga badan, maalin ay cadceedi soo baxdo. ducada loo ducaysto waxaa u fadli badan duca yowmu Carafa, maalinta Carafa ducadeeda. sidaa darteed ayaa waa maalin shaytaanku uu daciif noqonayo, maalin uu kaga dulli badan yahay shaytaanka maalintaa ma jiro. waa maalinta Carafa. sidaa darteed waxaa la shardiyaa qofka muslimka ah ee adduunka jooga 2 mid inuu noqdo, ama inuu Carafa taagnaado ama inuu soomo maalinta. soonka maalinta Carafa la soomo waxaa la weydiiyey nebiga, markaasuu yidhi sanadii tagtay ita soo socota alla ku dhaafaa subxaanahu wa tacaala. sanadii tagtay iyo midda soo socota. saa darteed maalinta haddii aad nasiib u yeelan weyso inaad Carafa istaagto, yaynan ku dhaafin inaad soonto, waayo 2 sano dembigooda ilaahay kuu saamaxaya subxaanahu wa tacaala, laguuna cafinayaa. ducada maalinta aad baa loogu xeel dheeraadaa. ilaahay wuu u soo dhowaanayaa addoommadiisa maalinta Carafa. dadka Carafa taagan wuu isu soo tajmiilin, waa isku soo qurxinayaa subxaanahu wa tacaala. malaa'igta ayuu ugu faantamayaa. ma u jeedin buu leeyahay addoommadayda, waxay ka yimideen min kulli fajin camiiq, jiha kasta oo fog, ayagoo ashcaf ah, ayagoo aqbar iyo boorwa leh, ayagoo jas dharkoodii isku mid yahay, ayagoo aad moodo inay bankii qiyaamo taagan yihiin. arrimooyinkaasoo dhan buu ilaahay kula faantamayaa subxaanahu wa tacaala addoommadiisa. sidaa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintaa waa maalinta uu in badan addoommadiisa ka xoreeya naarta. maalinta Carafa maalin sahlan ma aha. nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, khayru ducaa, ducatan u khayr badan waa ducada Carafa la ducaysto. waxa la yidhaahdana waxaa u khayr badan aniga iyo nebiyaashii hore wixii aan dhahnay, laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. haddaba maalintaa Carafo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka Carafa yimid oo dhan oo meesha jooga, marka malaa'igta uu weydiiyey asagoo cilmi badan, ka warrama maxay raadinayeen, maxay dalbayeen, maxay rabeen, intaas loo wada sugo, dembi dhaafkay weydiisanayeen la siiyo, wax kastoy alla weydiisanayeen la siiyo. malag baa hadlaya, markaasuu odhanayaa addoommada Carafa joogay ka mid ah ayaa jira, uma soo gelin dan iyo waxyaabo kale ayuu u soo galay, ama rati ka dhumay buu Carafa ka dhex raadinayay, asagana ku dara buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. dadka Carafa soo istaagay, ninka la fadhiista iyo ninka agtooda soo istaaga xataa hoogi maaye. sidaa darteed baa maalinta Carafo waxay tahay maalinta ugu qiimaha iyo wanaagga badan oo ilaahay uu dhex yeelay subxaanahu wa tacaala. saa darteed maalinta Carafada khayrka iyo wanaaggaasuu ilaahay dhex yeelay. casirkii horaan u tukanay oo waa la soo qadimiyey. inta ka dambaysa ilaahay baa loo tadarucayaa, ilaahay baa khayr adduun iyo mid aakhira la weydiisanayaa, ilaahay ayaa aad loo baryayaa. maalintaa waxaa cadceeddu marka ay sida u dhacdo
maqribka la tukan maaye waa lasoo dhaqaaqayaa. carafa halkaa maalin baa la istaagayaa. wuquufkeedu waa sidaa. dhammaan meel allaala meeshaad ka istaagto waa kuu sax, ee jabal raxma ama jabalkii carafa oo aad ku istaagta keligeed ma noqonaysa ajir iyo wanaag. nebigana wuxuu yidhi meel allaala meesha aad doontaan ama aad degantihiin oo raxaalihiina yahay istaaga. carafa dhammaanteed waa mowqif ilaa waadi corayna maahane. intaa wixii ka dambeeya qoraxdu markay dhacdo waa lasoo dhaqaaqa. xaggee lasoo aadayaa? masdelifa lasoo aadayaa. waa habeenka ay tobanaadku soo gelaysa. walaalayaal ayaan maraynaa. maalintaa markay qoraxdu dhacdo casirkeenii maqribkeenii horaan usoo qadiminay. maqribka ee casirkii duhurkii baan dhihi lahaa. maqribkiina waxaa loo rarayaa oo la geynayaa booska cishaa'iga. masdelifa markaa lagu tukanayaa. markay qoraxdu dhacdo waa lasoo dhaqaaqa. masdelifa la imaanayaa. 3 rakacadood oo maqrib ah iyo 2 rakacadood oo cisho ah oo laisku jamciyey ayaa la tukanayaa biaadaanin waaxid iyo wa iqaamatayn. waxaa lagu tukanayaa meesha lagu magacaabo jamac ama masdelifa. masdelifa markaasaa loogu tukada habeenka tobanaadka. nebigu wuxuu samayn jiray dhaqso ayuu iska seexan jiray. sababtu waxay tahay beri waa tobanaad, waa maalintii xaj akbar baa la marayaa. waa xajkii weynaa. howlaha ugu weyn waxaa la qabtaa maalinta tobanaadka ah. saa darteed dhaqso waa la iska seexanayaa. markaad dhaqso iska seexata masdelifa habeenka tobanaadka ay soo gelayso, subaxii markii la gaaro ayuu qofku soo kaca. mar allaala marka salaada subax xilligeedaad meesha ku tukanaysaa waa masdelifa. 7 dhagxaan ayaa laga soo qaadanayaa meesha. waa maalintii tobanaadkan galnay. waa lasoo dhaqaaqayaa. waxaa lasoo aadayaa jamaraadka. meesha jamaraadka ah waa meesha ilaah tilmaamay subxaanahu wa tacaala in ilaahay aada loogu xuso. in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xuso. laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum faidaa afadtum min carafaat fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam. waayo masdelifa xaramkay ka mid tahay. ilaahay ku xusa cinda almashcari alxaraam wadkuruuhu kamaa hadaakum wain kuntum min qablihi la min addaaliin. waxaad dhahaydeen kuwa dhunsane rabbigiin aad u xusa subxaanahu wa tacaala. mar allaala marka waaga si fiican u baryaa lasoo dhaqaaqayaa. mashcarulxaraamka marka limaada ilaahay lagu xuso. intaa kabacdi waxaad soo aadaysaa meesha ku geynaysa jamratulkubraa. 3 caqabad ama 3 jamro baa jirta. jamratulkubraa iyo jamratulwustaa iyo suqraa. mid dhexdhexaad ah, mid gaaban iyo mid dheer. maalinta tobanaadka ah 7 dhagax keliya ayaad wadataa. waxaad ku tuuraysaa jamratulkubraa ama jamratulcaqaba. mid kasta intaas talbiyaa socotay, intaa labeeg baa socotay. way istaagaysaa talbiyada oo allahu akbar bay isku bedelaysaa. ilaa maalin ciid baa markaa la maraa. maalin ciid ayaa markaa la joogaa. sidaa darteed maalin ciid ah ayaa la marayaa. sidaa darteed ayaa waxaa la tilmaamayaa maalinta jamratulcaqaba ee tuurashadeeda. waxaa la tuuranayaa jamaraadka koowaad 7 dhagax ayaad markaa ku tuuraysaa. mid kasta markaad tuuraysa waxaad dhahaysaa allahu akbar. allahu akbar baad ku tuuraysaa. mid kasta 7 in aad la heshaa meeshuna ay markaa ku dhacdo. intaa kabacdi mar allaala marka jamaraadkii aad sidaa u tuuratay maalintii tobanaad maxaa ku xiga? waxaa ku xiga haddii hadyi lagugu lahaa, haddii xoolo lagugu lahaa, haddii aad udxiyo gelayso, haddii aad xoolo gowracayso, inaad manaxarkii meesha xoolaha lagu gowraca aad tagto oo xoolihii aad qalato amase aad dad u wakiilato. waa hawsha labaad. hawsha saddexaad waa inuu qofku xiirtaa. ilaah subxaanahu wa tacaala nebigiisa wuxuu yidhi allaahuma irxam ilmuxalliqiin. ilaahu inta xiirata u naxariiso. saxaabadu waxay dhaheen walmuqasiriin. inta gaabsatan rasuulka ilaahay u duceey. allaahuma irxam ilmuxalliqiin buu ku celi. walmuqasiriin bay hoos uga dhiibeen. shib buu ka yidhi allaahuma irxam ilmuxalliqiin. mar saddexaad walmuqasiriin buu ku daray. idan inta xiiratana 3 baa loo duceeyey, inta gaabsatana hal. laysa cala anisaa'i xalq. dumarku xiirasha ma aha korkooda, way taqsiirsanayaan buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. intaa wixii ka dambeeya oo arrintaa aad qabato oo arrintaadu ay sidaa noqoto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa khayr iyo wanaag iyo arrimooyin fara badan aad rabto in laga gaaro, waxaad samaynaysaa arrimooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sidaa markaa u amray. madaxa axadka marka uu xiirto marka hore muxuu sameeyey? wuxuu tuurtay jamaraadkii. markii labaadna xoolihii buu gowracay. markii saddexaadna wuxuu tilmaamay in madaxii uu xirtay ama uu gaabsaday. hawsha afaraad waxay noqonaysaa inuu baxo ee uu aado maka ee uu soo tawaafo tawaafka lagu magacaabo tawaafu ziyaara ama tawaafu lifaada.
waa طawaafu lifaada. waa meesha ilaah uu ka yidhi markuu nebi ibraahim calayhi salaam uu beydkii dhisay, waadin fi nnaasi bilxaji, ummadda u dhawaaq xaj inay sameeyaan, ya'tuuka rijaalan, ayagoo lugaynayay kuu imaanayaan, wacalaa kulli daamirin, ayagoo mid bog duuban dushooda ah bay kuu imaanayaan, farda iyo hal iyo geelo iyo oo say lagu soo socday soo gaajooday kugu imaanayaan, ya'tiina min kulli fajin camiiq, waxay ka imaanayaan jiha kasta oo fog, liyashhaduu manaafica lahum, say u yimaadaan ay u soo xaadiraan manaafic ayaga u sugnaaday, iyo inay ilaahay ku xusaan calaa maa rasaqahum min bahiimati alancaam, marka xoolaha la gowracayo bismi illaah iyo ilaahay magaciisa inay markaa ku xusaan. fakuluu minha, hilibkii wixii aad qasheen cuna, wa atcimu albaa'isa alfaqiir, ninka baaska qaba ee dhibaataysan ee faqiirkana wax ka siiya marka xoolaha sidaa loo qala kabacdi. humma liyaqduu tafathahum, ha furiyaano oo ha iska baabi'iyaana tafahtooda. tafahta waxaa loola jeedaa waa basaasada, waa madaxiibaa la xiiran ama la gaabin, cidihiibaa markaa la iska jarayaa. humma liyaqduu tafathahum waliyuufuu nuduurahum, nadaradooda ha oofiyaan. rabbi hadduu xajka same igu geeyo neef baan bixin, haddii ilaah xajka same igu geeyo maalin baan soomi, wixii nadar oo ay galeenna ha oofiyaano. walyatawafuu bilbeyti alcatiiq, gurigii catiiqa ahaa, waa gurigii qadiimka ahaa ama gurigii horeeyey cibaado ahaan u horeeyeyna ha tawaafaana. waa tawaafka lagu magacaabo tawaafu lifaada ama tawaafu ziyaara maalinta 10aad. haddaba walaalayaal, maalintii 10aad baanu maraynaa. shalay oo 9aad ahayd dadka carafo taagan soonku lagama raba, ayaga ma soomayaan. nebigu waa u diiday in ay soomaan dadka carafo taagan carafada, laakiin dadka kalea loo ogol yahay. maalintaa ciidda ummaddu ay ku mashquulsan yihiin, ayagu ciid ka weyn bay markaa kusii jiraan. sidaa darteed bay tawaafayaan tawaafka lagu magacaabo tawaafu ziyaara ama tawaafu lifaada. walyatawafuu bilbeyti alcatiiqi. waa maalinta 10aad. maalintaas acmaalaha la qabto waxaan soo sheegnay waxaa ugu horeeya dhagxaantoo la tuurto, in xoolaha la gowraco, in madaxa la gaabsado, in la dawaafo tawaafu lifaada. waa 4 howl oo waaweyn baa la qabtaa maalinta 10aadka ah. saa darteed waxyaabaha ugu qiimaha badan ee maalintaa la qabta, nebiga markii la weydiiyey wuxuu yidhi alcaj wathaj, waa qaylo iyo dhiig la qubo. cajka waxaa loola jeedaa waa in la qayliyaa, allahu akbar xoog loo qaado. iyo waxa labaad ee uu ku tilmaamay ilaahay subxaanahu watacaala nebigiisa oo ah thajigana waxaa loola jeedaa waa in dhiig la qubo, in maalinta 10aad xoolo la gowraco. taasaa markaa loola jeedaa waa camalada lagu qabto ee ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala kuwa ugu qiimaha badan. hadday saa isagu kala horhoreeyaan, ka warrama maalinta haddii la kala hormariyo acmaalaha la qabanayo. dhagxaantii la tuurtaa horeysay, maadan tuuranine ee xoolihii baad gowracday, amase xoolihii gowracaa la rabay, ma gowracine timahaad xiiratay, timaha xirashadoodaa la rabay, ma xiranina tawaaful ifaadaad aaday. saa haddii loo kala hormariyo maalinta 10aadka wax dhibaataa kuma jiro, xajkaagana waa uu ku jiraa. sidaa darteed baa maalintaa nebiga uu istaagay asagoo su'aalo la weydiinayo. nin baa u yimid markaasuu yidhi waan xiirtay intaanan tuuranin ka hore maxaan sameeyaa? qaala irmi walaa xaraj, hadda tuura dembi korkaaga ma aha. nin kale u yimid markaasuu yidhi tiftu, waan tawaafay inta aanan timihii xiiranin ka hor maxaan sameeyaa? hadda xiiro walaa xaraj, dembina korkaaga ma aha. nin kale ayaa yimid waan xiirtay intaanan gowracin ka hor, hadda gowrac buu nebigu yidhi, wax dembina korkaaga ma aha. lama su'aalin rasuulka maalintaa shay la hormariyey ama la dibdhigay ilaa qaala ifcal walaa xaraj, wuxuu odhanayay sameey, wax dembina korkaaga ma aha. meeshaan markaan marayno oo xajkii gebagaba noo maraayo, oo maalintii 10aad aan marayno, oo tawaaful ifaada aan tawaafnay, oo ilaahay subxaana watacaala samay wanaag noogu dhameeyey, waxaa intaa wixii ka dambeey aad u soo laabanaysaa meeshii aad ka deganayd mina. 3 habeen oo kale ama 2 habeen oo kalea meesha lasii joogayaa. habeenka 11aad mina la seexanayaa. markaad seexato shalay maalintii 10aad ahayd waxaan dhagxaanta tuuranay duxadii, waa subaxii hore. laakiin maalinta 11aad waxaa la tuuranayaa waa zawaalka, waa bacda zawaal. waxaa la tuuranayaa duhurka iyo wixii markaa ka dambeeya.
oo subaxii hore markaa lama tuuranayo. waxaad qaadanaysaa 21 dhagxaan meeshaad joogto uun ka qaado. mar allaala markaad ka qaadato waxaad ka bilaabaysaa, shalay waxaan ka bilownay jamratulkubraa soo ma ahayn, hadda waxaan ka bilaabaynaa jamratusuqraa tii yarayd. 7 dhagax baad ku tuuraysaa, mid kasta allahu akbar adoo dhahaya. kasoo dhaqaaq oo meel sahlan raadso, qiblada qaabil, ilaahay bari subxaanahu watacaala. kasoo dhaqaaq waxaad timaadaa jamratulwustaa, way isku dhinac yaalaan, ayadan waxaad ku tuuraysaa 7 kale. markaad ku tuurato makaanu sahla raadso, ilaahay bari subxaanahu watacaala. cabdullaahi bni cumar baa intuu saa sameeyey baa la yidhi, markuu istaagay wuxuu yidhi meeshan waa makaankii uu istaagay ninkii lagu soo dejiyey suuratulbaqara, nebi moxamed buu ula jeedaa. suuratulbaqara muxuu u tilmaamay? suuratulbaqara waa suuradda keliya axkaamta xajka ugu badan ama inta ugu badan markaa lagu sheego. intaa wixii ka dambeeya waad soo dhaqaaqaysaa, jamradii ugu horeysay oo aad shalay tuurato kubraa ayaa maanta u dambaysa, ayadaa 7 ku tuuraysaa, agteedana ha istaagin, iska soo dhaqaaq, meeshii aad mina ka deganeed ayaad imaanaysaa. maxaan maraynaa? maalintii 11aad, waa ayaamu tashriiq. waxaa ku xigta habeenkii 12aad, isla meeshuun baad seexanaysaa. waxaad soo kacaysaa subaxii, iska joogo, ilaahay bari subxaana watacaala. zawaalka marka la gaaro 21 dhagax haddana soo qaado. waxaad imaanaysaa hawshii aad shalay qabatay, suqra ka bilow, wusda ku xiji, kubra u dambaysii. markaad intaas samayso waxaad ogaanaysaa inaad marayso ayaamu tashriiq. ayaamu tashriiq waa ayaamu alakli washurbi, sida ilaah tilmaamay nebigiisa, waa maalmo cunitaan iyo cabitaan iyo dikri ilaah subxaana watacaala. ilaahayna aad baa loo xusaa, takbiirtaa la aqriyaa, minoo dhan way gariiri jirtay takbiir daraaddeed. saa darteed ayaad maalinta 11aad iyo 12aad markaasaa u tuurato way kuu dhammaatay, waad iska soo bixi kartaa. waa meesha ilaahay uu ka yidhi wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat, maalmo tirsan ilaahay xusa. faman tacajala fii yowmayn, qofkii 2 maalmood kusoo degdega, 11 iyo 12 buu soo tuurtay, bishardi waa inaysan cadceedda mina kuugu dhicin. kasoo tag oo dawaaful wadaac soo sameey ee gurigaaga iska soo aad. faman tacajala fii yowmayni falaa ihma calayhi, korkiisa dembi ma aha. waman ta'akhara maxaa loola jeedaa? waa qofka inta 12 maalintii tuurtay haddana mina isaga laabto habeenkii 13aad seexday, intaa ka bacdi dhagxaantii soo qaatay, haddana maalintii 13aad haddana sidii howlihii kala soo qabtay, jamratu suqraa, wustaa iyo kubra, intuu soo kala tuurtay ka bacdi soo baxay. faman tacajala fii yowmayn waa qofkii 12 marka ay tahay iska soo baxa, falaa ihma calayhi. waman ta'akhara falaa ihma calayhi, qofkii ta'akhuroo dib dhacana falaa ihma calayh. laakiin tee fadli badan in la daaho oo 13 lagu soo daro, liman ittaqaa buu ilaahay ku daray subxaana watacaala. intaa markaad samayso xajkaagii wuxuu kuu noqday xaj tamaam ah oo markaa nadiif ah. waa inta xajka la tilmaamayo ee qofka muslimkaa markaa laga doonayo. qofkii raba inuu kusii shaqaysto xajka gudihiisa, ilaah subxaana watacaala nebigiisay u yimideen saxaabada suuqa majaasid alcukaad iyo meelaha lamidkay ku tijaaraysan jireen jaahiliga. dembi amay noqotaabay isdhaheen, su-aal bay weydiiyeen nebiga, markaasaa lagu soo dejiyey laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum, wax dembiya korkiina maaha haddaad fadli ilaahay raadsataan idinkoo xajkii markaa ku jira. meesha aad joogtaad dhar ka soo qaaday markaad ku iibinaysaa, bishardi waa in acmaasha xajka aysan kaa kala go-in, wax nusqaana inaysan ku dhicin, hawshaadana qabatay, waxyaaba kalena samaysatay, jikaad meesha ku shidatay, shaah baad ku iibinaysaa, carafa waad tegaysaa, ma dhagxaantii waad tuuranaysaa, waxba kaama nusqaamayo. laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum, ninkii fadli rabbigii xaggiisa ka ahaatay markaa raadiya. xaalku saasuu markaa ilaahay u tilmaamay subxaanahu watacaala. idan xajka xaaladiisuna waa sidaa. gabadhii ayadoo xajka u socoto xayd ku dhaca, 2 sibaa loo isticmaalayaa. haddii intaynan weli hawshii bilaabin oo xajkii waxyaabihii aan la gudagelin macduur noqotona, waxay samaynaysaa waxa uu xaajigu sameeyo oo dhan, laakiin dawaafka beytka ka mamnuuca. caaisha sarifa markii la gaaray ayadoo oynaysuu nebigu arkay, maa laki buu yidhi, maxaa kugu dhacay? anafisti, macnaha xayd miyaa kugu dhacay? qaalad nacam. ha oynin buu yidhi, waa arrin ilaahay ku dabeeceeyey calaa banaati aadam, aadam gabdhahooda oo dhan ee sameey wuxuu xaajigu sameeyo, hayra an laa tatuufii bilbeyt, laakiin beytka uun ha tawaafin. carafa way istaagi kartaa, masdelif way istaagi kartaa, waxaasoo dhan way samayn kartaa, dhagxaanta way tuuran kartaa, un tawaafkii
baa loo diiday. Asma bintu Cumays Abubakar baa qabay, jidka inta la sii socday bay cunug ku dhashay. Markaasuu rasuulku yidhi qubayse istinfaar samayso, wax dhiiga kaa xaniba, intaa ka bacdina xarma buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. Idan waxaa loo kala qiyaasaa haddii gabadhu in allaala inta aynan tawaaful ifaada ama waa tawaafu ziyaara aysan tawaafin, haddii dhiiga uu ku dhaco, tawaafka ugu dambeeya wadaaca way soo sugaysaa. waa bilqasab inay soo sugto, ilaan tawaafka waa tawaaf muhiim ah oo loo baahan yahay. Ama haddii tawaaful ifaada markay tawaaftay oo howlihii hore ay soo qabatay kadib ay xaydkii ku dhaco, tawaaful wadaac waa laga cafinayaa, wayna iska soo baxaysaa sida rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. xaaladdu saasay markaa u tahay, waayo Safiya ayaa la xajisay nebiga markii xajka uu dhammaanayey ayuu wuxuu nin naagtiisa ka doona. Markaasaa la yidhi Safiya xayd baa ku dhacay. markaasuu rasuulku yidhi caqra, macnaha qoorta iyo lugta allah ka gooye, mana xabisi rabtaa? awamaa tifti, miyaysan tawaafin tawaaful ifaada? nacam. qaala fanfiri, nabixiya buu dhahay, wax laga rabo markaa ma jire. Caaisha oo markii hore ka mid ahayd dadkii cumrada soo xirtay, haddana xaydkii ku dhacay, cumradii way ku dhammaatay, ilaan beydka ma tawaafi karto. markii xajkii dhammaaday tiri yaa rasuul allah, dadku ma xaj iyo cumray qaadanayaan, anigana ma xaj keligiisaan qaadana? markaasaa walaalkeed cabdiraxmaan ibni abibakar uu ku daray, uu yidhi masjid tanciim geey, ha soo xarmato, soo cumraysii, nagana dabakeen buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. marka intaas waa acmaalaha xajka iyo sida qofka muslimka loogu baahan yahay mar walba inuu markaa ugu dadaalo khayrkii iyo wanaagii waxyaabaha ilaahay amray subxaanahu watacaala. fiihi aayaatun bayinaatun maqaamu ibraahim waman dakhalahu kana aaminan walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila. fadligiisana saasaan markaa u yahay. acmaalaha iyo sida loo gutana xaaladeedu markaa waa sidaa. intaa ka bacdi xaaji baa tahaye xumaantaad iska daynaysaa, xaaji baa tahaye xaaraantaad iska daynaysaa, xaajiyad baa tahaye wixii hore aad ugu jirtay markaa waad iska dhaafaysaa. qofka mar allaala marka uu taga intuusan xajinin siyaarada masaajidka madiina wuu aadi karaa, markuu xajiyi ka bacdina wuu aadi karaa. haddii labadaba uusan aadinusa uu kasoo tagana xajkiisa waa u taam, waayo xaj wuxuu ka bilaabdaa dawaafu lquduum wuxuuna ku dhammaadaa طواف الوداع. إلى حقا كبرينا إنه حقا نوافجيه حجيدنا وحان إلهي أغبرينا سبحانه وتعالى بالسهل والسهولة إنه إلهي أغفض ذي إن شاء الله تعالى إن سمائي وناقنا ألكو جيه سمائي وناقنا إلهي كسر عليه سبحانه وتعالى حجك فضائشاي وناقا سومر كاليهي وحكالو ميشي كجرتي مالين عرفاء أيضا النبي قال لتاقيهي يعني فرسكيسي كبعي مركا كبعد بقورتي كجبسي كبعدنا وأو بنتي رسولك حجري صلى الله عليه وسلم biyo iyo geed gobeed ku dhaqa labadiisa go-na karfan uga dhiga madaxana ha ka daboolina xanaq iyo udugna ha u marinina waayo fa ina allaha yabcathu yowma alqiyaama mulabiyan labayk allahuma labayk asoo dhahaya ayuu soo baxayaa buu dhahay maalinta qiyaamo rasuulka sal allahu alayhi wasalam labadiisii go buu wataa ilaa xajkiisii weli ma dhammaynin axad kasta wuxuu ku soo baxaa calaamayk allahuma labayk labayka laa shariika lah nin dhahaya oo laba go garabka u saaran yahay yaa ninka naar janno ka celinaya jawaabtu waa ma jirto. marka camaalaha lagu khatimayna ka khayr iyo wanaag badan tahay ayay markaa ka mid tahay. ilaah subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa xaj mabruur sacyan mashkuur wadanban maqfuur. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ حسن إبراهيم عيسى إلهي سبحانه